kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono ciyaaraha. saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan. haddaa janalka arka sports ku cusub tahay subscribe saaro si kuu soo gaaro muuqaalada soo socda. muuqaalkan shirgareeya la wadaaga saaxiibada ciyaaraha xiiseeya si ay ugu soo biiraan. waad ku mahadsantihiin. soo dhawaada mar kale. haddii aan ku bilowno muuqaalkiina, xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka South America. Colombia iyo Ecuador ayaa isla ciyaaray. gudahaan ciyaartooda waxay ku soo dhamaatay eber min hal dhibcood ayay wada qaateen. Argentina iyo Peru ayaa isla ciyaaray kulan ka tirsan isreebka Latin America. hal gool eber waxaa ku badisay xulka Argentina. goolka qura uu ku badiyay xulkaas waxaa u dhaliyay Lautaro Martinez. Chile iyo Venezuela ayaa isla ciyaaray 3 gool eber waxaa ku badiyay xulka Chile. Brazil iyo Uruguay ayaa isla ciyaaray 4-1 waxaa ku badiyay xulka Brazil. waana kulmadii xal laga ciyaaray isreebka koobka adduunka Qatar 2022 Latin America. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in xidiga Pedri qalinka ugu duugay heshiis cusub oo kooxda kula joogi doono ilaa xagaaga 2026. kooxda ayaa heshiiska ugu dhawaaqday muuqaal cajiib ah ee ku muujinayso in xidiga Pedri oo saxiix heshiis cusub. calaamada saxiixa ku muujinaya kaamirada. Pedri ayaa muhiim ka noqday kooxda Barcelona tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Las Palmas xilliyeedkii hore, asigoo ciyaaray kulamo badan oo kooxda Barcelona ah. waxaa intaas sii dheer ah in kooxda Barca heshiiska xidiga 18 sano jirka ku xiray lacag dhan 1 milyan oo euro lagu burburi karo heshiiskiisa haddii uu ka tagayo kooxda Barcelona. Romelu Lukaku ayaa tababar buuxa la qaatay Chelsea Khamiistii, inkastoo dhaawac ugu baxay waajibaadka xulka qaranka Belgium, laakiin waxaa tababarka ka maqan xidiga Antonio Rudiger. weeraryahanka ayaa qayb ka ah kooxdii Belgium guuldarada kala kulantay Faransa Khamiistii hore, asigoo shabaqa ka soo taabtay, laakiin xidiga ayaa sheegay kulankii dambe Italy sabab la xiriira dhaawac soo gaaray. Chelsea ayaa ku kalsoon in dhaawaca xidiga ahayn mid halis ah, waxaana tababar buuxo la qaatay xidigaha isku kooxda yihiin Chelsea ka hor soo laabashada Premier League. Lukaku ayaa si buuxda tababarka ula qaatay Chelsea, laakiin waxaa tababarka laga waayay xidiga daafaca u ciyaara Rudiger, kaasoo dhankiisa ku dhaawacmay waajibaadka xulkiisa qarankiisa Jarmal. Rudiger ayaa dhankiisa muhiim u ah Chelsea, asigoo door weyn ka ciyaaray qaab ciyaareedka Chelsea tan iyo markii Tuchel tababaraha u noqday kooxda Chelsea. Liverpool ayaa xiiseynaysa in dib loo soo wareegto Philippe Coutinho sida ay sheegayaan wararku. xidig khadka dhexe ayaa ku dhibaatooday inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkii laga bartay tan iyo markii uu ku biiray kooxda Barcelona suuqii January 2018. Philippe Coutinho ayaa ku fashilmay inuu ismuujiyo waqtigii uu amaahda ku joogay Bayern Munich ayaa ah xidig Barcelona ay doonayso inay iska iibiso. sida laga soo xigtay The Sun, Reds ayaa mar kale soo dhaweyn doonto Coutinho maadaama ay aaminsan yihiin in heshiis lagu burburi karo qiimo jaban. Coutinho ayaa sidoo kale ku faraxsan talaabadan maadaama uu aaminsan yahay in tababare Jurgen Klopp uu mar kale ka soo saaro qaab ciyaareed fiican. saaxiibayaal muuqaalkan shirgareeya la wadaaga saaxiibada ciyaaraha xiiseeya si ay ugu soo biiraan. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.